عاتا وقوغا لانتقوميدي كل شوس ايلي كدري قبلا جلاعة عدي نعلا كدري قالي وقال كدري يهود باتي Soomaaliya qabiil kada mise qabiil ahana Soomaali weyn way maxaa Atooshare oo maalin dhaweytu aqal galay ayaa haatan qarka u saaran in la gubo oo sida oo kalena la khayrujiyo waxa weerar culus ku soo qaaday rag ka soo jeeda beesha Habargidir maadaama uu guursaday gabar lagu magacaabo Sacdiyo Habargidir waxaana gabadhan ay sheegeen inaysan u qalmin Atooshare oo ka soo jeeda beesha Jareerweyne waxayna ballan ku qaadeen in ay dili doonaan ragga soo weeraray Atooshare iyo sidoo kale Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Tooba ayaa waxa dhex maray waraysi cajiib ah waxaan kula wadaagi doonaa codad sir ah iyo sidoo kale muuqaalo laga duubay Xasan Toob oo ay handadayaan raggii Habargidir oo ballan ku qaaday inay khaarijin doonaan Atooshare haddaba gacalayaal ka qayb qaata qadiyada looga soo horjeedo midabta koorka iyo sidoo kale xaasidnimada beelaha Soomaaliyeed ee tunka weyn ay u qabaan beelaha yaryar ee loo yaqaan point 5ka muuqaalkan leeg fara badan saaray si bulsho weynta Soomaaliyeed uu gaaro leegta saaxiibayaal haddii ay tahay markii ugu horeysana soo booqato YouTube-kana subscribe saaray gambaleelkana furo ku mahadsanida aynu ku bilownay Atooshare oo ah wiil wariye ah oo ka hawlgala bogga Durdur Media ayaa waxa uu maalin dhaweytu la aqal galay gabar lagu magacaabo Sacdiyo Habargidir waxaana gabadhan ay ka soo jeedaa beesha Habargidir gaar ahaan magaalada Guriceel waxaana ninkan oo lagu magacaabo Atooshare ay gabadhan ahaayeen saaxiibo muddo dheer sida iyadu ku sheegtay waraysigeedu gabadhan waxay tiri inay ka soo jeedo beelweynta Habargidir gaar ahaan magaalooyinka Guriceel iyo sidoo kale koonfurta Gaalkacyo waxayna sheegtay inay qabiilkaasi tahay raggii ayaa weerar culus waxay ku soo qaadeen markaasi Atooshare waxa tan xaaladiisu ay ku sugan tahay in la gubo wuxuuna taleefankii u dhiibay Xasan Mustafa Isxaaq oo ah ninka aaba ahaan u haysta Atooshare waa kan waraysiga halista ahaa ee dhex maray daawasho wacan عاتا وقوغا لانتقوميدي كل شوس ايلي كدري قبلا جلاعة عدي نعلا كدري قالي وقال كدري يهود باتي Soomaaliya qabiil kada mise qabiil ahana Soomaali weyn way maxaa ha qabiilkeeda rabtaa gabadh inaa ogaato miya nee walaa qabiilkeed ma ogaasaxo Soomaali weyn laakiin may saaxiibo waa qabiilkeed aniga ma sheegi kari saaxiibo laakiin maxaa laakiin qabiiladaas maxaa kartaa may qabiilada maxaa ka falay adiga soo muslim muslimnimo jirto see ku ogaanay muslimnimo ma jirto miya asmi Soomaalida micnaa qabiilay ka dambaysaa saas waa miya danta akaleeda maxaa waaye qabiilkaad see qabiil maxaa la fiiri adi dhigeysa adi qabiilkaad fiiri adi qabiil waxa waa anay qabiil mani mugtahay laakiin waxa su'aal dhaaf Soomaalida iska dhaaftaa qabiil wax lagu guursaday waxa su'aal laga gudbinayo qabiilniyo cunsuriyada jirta miya cunsuriyada Soomaali wali waa ka jirtaa ma qabiilkii niyo saaxiibo cunsuriyadaas waxa waaye ma fiicno ma fahamtay ceeb waaye dad muslimna leeyahay مسكو قلمان محاوي محاس مسكو قلم وين ايوه رالو دغنا marka ay halkaasi joogto Xasan Toob waxa si cad u handaday nin kamid ah ciidamada beesha Habargidir oo ballan ku qaaday inuu saacadaha soo aadan nolosha ku gubi doono Atooshare oo ah nin ka soo jeeda beesha Jareerweyne oo ah beelaha aan hubaysnayn wuxuuna ballan ku qaaday inuu khaarijin doono haddaba saaxiibayaal bulsho weynta Soomaaliyeed waxa ay maanta maraysaa inay is cunsuriyayaan oo is qabiilayaan soo ma ogid haddii nin gaal ah oo kufaar ah u guursado mid kamid ah beelaha tirada badan
ama sheegtay inay awood badan yihiin ay markaasi ku farxayaan oo ay dhahayaan gabadha iyadu waa heer caalami oo waxa ay guursatay nin caddaan ah. hadda waa nin kufaar ah oo gaal ah oo xataa buuryadii aan laga jarin ayaa laga yaabaa inay ku faanaan beesha markaasi uu gabadhooda guursado. marka Soomaaliya la joogo haddii nin jareer ah ama eelay ah ama madhibaan ah ama ka soo jeeda beelaha laga tira badan yahay uu guursado gabar ka soo jeeda beelaha tunka weyn, markaasi la yiso oo markaasi weerar lagu qaado, marar badanna la khaarijiyey sidii hadda koor ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo nolosha lagu gubay wiil Soomaaliyeed oo jeclaaday gabar jileec ah markaasina guursaday oo nolosha lagu khaarijiyey. waxaana xaalkaasi ay noqotay midii ugu la yaabka badnayd ee Soomaaliya ka dhacda, iyada oo markaasi ciidamo markaasi ka soo jeeda beelaha tirada badan ay weerar ku soo qaadeen wiilkii jireerka ahaa ee gabadha jileec ah u dhaxday. haatan Catooshere waxa uu marayaa sheeko la mid ah sheekadaasi, isagoo haatan qarka u saaran in la khaarijiyo oo la cuno. sidaasi darteedna maantay markaasi sidaasi uu ku geeriyoodo Catooshere ayaa xaalkiisa waxaa markaasi laga soo dayrinayaa isaga oo toddobadii aan si niyad sami ah aan u dhammaysan, waxaana tan iyo markii uu la aqalgalay gabadhan oo hanjabaado culus kala kulmayaa beesha ay ka soo jeeda gabadhan oo tigteegeedu haatan ugu qoran yahay Sacdiyo Habargidir. waxaana marakan laga cabsi qabaa in ciidamo ka soo jeeda beeshaasi ay weerar culus ku qaadaan Catooshere oo ay markaasi madaxa ku dhiftaan jabiyaan. Catooshere ayaa ah nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo safarka noloshiisa ka soo bilaabay magaalada Jowhar oo markaasi uu degan yahay aabihiis oo ka soo jeeda beesha Jararweyne, wuxuuna safarkiisi iyo noloshiisiiba u qurxiyay ninka lagu magacaabo Xasan Mustafa Isaaq Xasan Tooba oo ah nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo qalbi wanaagsan, kaasi oo markaasi dad badan soo gacan qabtay, sidoo kalena dad badan oo markaasi YouTuber ah maanta caanka ah markaasi soo dhisay oo markaasi caan ka dhigay. Xasan Tooba ayaa markaasi wiilkan dhalinyarada ah garab qabtay isagoo u galay booskii aabe oo markaasina dhaqaale fara badan oo YouTube-ka iyo Facebook-ka ay ka sameeyeen markaasi noloshiisa ku dabiray, waxaana ugu dambeyn la aqalgeliyay mid ka mid ah gabdhaha ugu quruxda badan ee ka soo jeeda beelaha markaasi jileeca. waxaana marakan culays wajahaya Xasan Toob oo lambarkiisa la iska wacayo, sidoo kalena Xasan Toob laftigiisa ayaa la amray in la dilayo maadaama uu isagu ka dambeeyo in markaasi uu Catooshere u guuriyo gabar ka soo jeeda beelaha jileeca. xaalka ayaa allow sahla, waxaana Catooshere iyo sidoo kale Xasan Tooba marakan ay ku sugan yihiin xaalad halis ah, iyaga oo markaasina ka dhudhuumanaya wadooyinka weyn ee magaalada Muqdisho si aan loo khaarijinin. waxaana lagu haystaa maxaad gabadh jileeca ugu dadeen wiilkan jareerka ah, waxayna markaasi ku haystaan gabadhan uma qalmo wiilkan ayay leeyihiin iyo cunsuriyad iyo qabyaalad aad u xun oo markaasi bulshada Soomaaliyeedna markaasi ay ku sii dhaqmayso. Catooshere ayaa haatan waxa uu ku jiraa toddobadii, wuxuuna cabsi weyn uga wajahayaa in markaasi la toogto ama la qaarijiyo maadaama xaalku uu marakan soo dhaafay alamtara oo markaasi beelaha Soomaaliyeed ee hubaysan gaar ahaan beesha ay ka soo jeeda gabadhan ay leeyihiin annaga caruurteena abtiyaal adeero uma noqonayaan kuwo jareer ah, annaguna abtiyaal uma noqonayno niman jareer ah. waxayna ballan ku qaadeen inay cuni doonaan goob walbo ay ku arkaanna ay madaxa ku dhufan doonaan. xaaska Catooshere ayaa oohin afka jabsatay iyadoo oo sheegtay in ninkeeda laga gardaran yahay maadaama uu yahay ay isjeclaadeen. waxay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday in laga kala yareeyo fadeexadda iyo sidoo kale in qoyskooda aan la burburin, iyagoo bulshooyinka Soomaaliyeed ka codsatay in ninkeeda faraha looga qaado aan la cunsuriyeyn. waxay tiri haddii uu timo adag yahay, haddii uu markaasi timo jilicsan yahayba, iyo haddii uu san bakhaara leeyahay, haddii uu san weyn leeyahayba, aniga ayaa ku doortay faraha iga qaada. balse waxaas dhag uma jalaq siinayaan hooyooyinkeed iyo aabaheeda oo markaasi gadaal ay sheekadu kala xumaatay. waxaana weerar culus soo qaaday haatan qabiilka ay ka soo jeeda gabadhan oo markaasi doonaya inay cunaan Xasan Tooba iyo sidoo kale Catooshere oo labadaba markaasi ballan lagu qaaday in la dili doono maalmaha soo aadan. Xasan Toob ayaa xaalkiisu haatan waxa uu ku sugan yahay xaalad halis ah,
wuxuuna maraykan ku dhuudhuumanayaa mid ka mid a huteelada magaalada muqdisho isagoo ka cabsi qaba in lagu cuno markaasi mid ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho. baraankii ay duubijiyeen iyo wargeysyadii ayaa haatan dib u istaagay maadaama weerar culus ay ku soo qaadeen qabiilka ay markaasi sheegayaan in laga dhacay gabadhoodii. mid ka mid a dhalinyarada qabiilka ay ka soo jeeda gabadhan ayaa sheegay in gabadhooda la sixray oo Catoos Share ma diidaystay, sidaasina xoog loogu dhacay, markaasina ay dili doonaan Catoos Share. wixii ku soo kordha halkan ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal ku mahadsanid.